munaasabadan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay in ka badan 45 arday oo dhamaysatay culuumta caafimaadka ee ka baxday iskuulka Ramadan Private School ayaa maanta lagu qabtay gudaha isbitaalka GMC ee Gaalkacyo. munaasabadan shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug, agaasimaha guud ee isbitaalka GMC ee gobolka Mudug, Dr. Dhagacade, maamulka iyo macallimiinta iyo marti sharaf kale lagu casuumay xafladaasi. ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay madaxa culuumta caafimaadka ee Ramadan Private School Mukhtaar Sudaani, isagoo ka sheekeeyay marxaladii uu soo maray iskuulka iyo maadooyinka kale ee lagu dhigay macadka. runtii magaalada Gaalkacyo waxaa laga furay 99kii bishii August ayaa laga furay gobolka Mudug. runtii waxaan ku bilownay 2 qol, haatan wuxuu marayaa 18 qol iyo qayb villa ah, iyadoo branchyaal kale fara badan gobolada Puntland uu ku leeyahay. runtii waagaan bilaabanay haatan farq weyn ayaa u dhaxeeyo xagga tayada iyo xagga ardayda tirada iyo xagga inta soo saarista ahaan lahayd luqadda Ingiriiska, luqadda Carabiga iyo haatan oo aan ku soo kordhinay luqadda Sawaaxiliga. dhanka xisaabaadka dugsiga waxa uu bixiyaa xisaabaadka xisaab hoose, dhexe iyo sare, form 1 ilaa iyo form 4 ayuu bixiyaa. sidoo kale dugsiga waxaan kusoo kordhinay qayb barashada saxaafadda ah oo awalba ka bixi jirta haatan ka socota. bacadka RBS waxyaabaha kale oo bixiya waxaa kamid ah hadda aan kusoo kordhinay barashada maado cusub ama qaab technician ahaan ardayda loo bari doono waa dentistic, farsamada ilkaha ayaan kusoo kordhinay. runtii dugsiga RBS waxyaabaha maadooyin ka baxa, maadada ugu muhiimsan oo aan ka tagaydana waxay tahay waa qaybta computerka oo ardayda markaas aan ku barno barnaamijyada kala duwan. sidoo kale waxaa isna xafladaasi ka hadlay Professor Cabdiqaadir Jaamac Dhagacade, isagoo ugu mahadceliyay ardayda dhamaysatay barashada caafimaadka, wuxuuna xusay inay socdaan dadaalo lagu xoojinayo xiriir ku dhaxeeya RBS iyo GMC. يعني wuxuu ku dhigsaday oo ku istaagay marar badan oo carabka saaray haweenku cadka ay ku leeyihiin horumarka mataqaana ummadda. waxaan leeyahay maanta Soomaaliya haday jidho waxay ku jidhaa ilaahay wuxuu na siiyay haweenka badbaadiyay. waxaan maqlay hadaad aragtid oday duqoobayo soo gotayo shaatigiisu qoorta ka dildilaaco ka go'ayo wasakha nin qof kasta qof baa u maqan, waxa u maqan wiil. hadaad aragtid laakiin oday hashaashayo shaakiisu cadyahay oo nadiifsan koofadiisa oo shaaha maqaayada ka kabaysanaya oo raggiisa odayaalkiisa la sheekaysanaya gabar baa u maqan. taas waxa weeye waxay ku tusaaleynaysaa haweenku sida ay weligood ugu xiran yihiin reerkii, waxtarkoodii, horumarkoodii, waxqabadkii reerka inay weligood ay hilmaamin ay la socdaan. waxaa la yiraahdaa nin fiican hadaad aragtid naag fiican baa ka dambaysa. waxaa weeye hubaal aniga waxba ay soo maray taariikhda noloshayda aan la yaabay. waxaad ogaatiin maanta dhibaatada nagu dhacday magaalaha meelaha ugu foolxun aad ka arkaysiin waxaa weeye shaqo la'aanta. ugu dambeyntii waxaa ka hadlay goobta gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Maxamed Yuusuf Jaamac Tiga, isagoo sheegay in ka maamulhan ay soo dhaweynayaan ardayda maanta ka qalin jabisay iskuulka Ramadan Private School. xigta waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadan qiimaha badan leh oo 40 arday oo ka qalin jabisay dugsiga RBS oo waxa haddana fursad kala sii ah in ay tahay 34 arday ay yihiin gabdha ay yihiin. qofkii gabar wax baray waxa la yiraahdaa waxa xigmad baa oranaysa waa qof ummad wax baray. ayay gabadhaan hooyay noqonaysaa, madrasay noqonaysaa, ummad bay soo saaraysaa. qofkii wiil wax baraana waa qof wax baray. marka RBS aad baan uga mahadcelinayaa 34 gabdhood oo aan rajaynayna inaysan waxbarashadana halka uga harin, sidii ay dhaqaatiir u noqon lahaayeen, sidii ay hogaamiyayaal u noqon lahaayeen, sidii ay halgamayaal ummadooda taariikhdeeda baaldahaba ka gala ay u noqon lahaayeen. waxaan idin xusuusinayaa gabdhow ha is dhayalsanina. waxaad ogtihiin bishii hore oo horaanteedii maama Xawa Aadan Camay shahaadada ugu sarreysa adduunka inay qaadatay. biladaas maxay ku qaadatay? boqori iyo qabiil iyo nin raga iyo digdig bay ku qaadatay. halkan ay u gashay ummadeeda inay wax tadhayo ku qaadatay. ummadeena inaad
dhammaan dadkii kasoo qaybgalay xafladda shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardaydan ee dhammaysatay culuumta caafimaadka ayaa xusay in RBS uu wax badan uu ka bedelay garaadka dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Puntland iyo Soomaaliya inkastoo xafladda markii dambe ay ku soo idlaatay jawigii loogu talagalay. Ibn Cajiib Xaashi, Telefishinka Universal, Gaalkacyo.